maaragtay Soomaalida ardada iyo nimanka maaragtay Soomaaliya jooga wax ka dhaxay ma laha qofka meeshan jooga run ahaantii wuxuu ku mashquulsan yahay sidoo mataqaana imtixaanka oo maaragtay barmoos laha sidoo la socdo jineed Times online oo kaliya ma maaragtay waxa Soomaalida ka qora negative-ka ama hadallada xun waxa sidoo kale jirtay bariya soo dhaafay isbuuciyadii aan soo dhaafnay tagay journalka The Sun oo ah journal weyn oo ka baxa maaragtay wadankan Ingiriiska wuxuu asagana sidoo kale maqaal yar uu ka qoray family Soomaaliyeed oo degan meel guri qaali ah centralka maaragtay gudaha magaalada London kaasoo ku tilmaamay familkaas inuu yahay family Soomaali oo qaxooti ah oo soo galay wadanka lacag badan ay dawladda maaragtay ku qarash garayso asagoo si negative maaragtay u tusayo dadka aan ula deganahay wadankan Ingiriiska arintaas arintaas oo kale sidoo kale ma research ba ku soo sameysay maxaa ka dambeeyay inay qoraan iyo maxayna ay noqotay maaragtay outcome-kooda run ahaantii arintan waxay dhacday 3 bishii November 2009 family dhalasho Ingiriis ay leeyihiin dad hadda maaragtay soo galay oo qaxooti ah ma aha article kuna title-keedu wuxuu ahaa former asylum seeker qaxooti hore wadankan Soomaalidu way yimaadeen waxbay ka barteen shaqo ka maaragtay galeen dhalashay qaateen macnaha hadda lagu dhaarinayo maaragtay lagu geenayo maxay ahayd councilka xaafadada oo mayor ku imaanayo shahaado lagu guddoonsiinayo waxay tahay in aad ku soo barmoostay waxa ay tahay noqoshada dhalashada Ingiriiska oo aad qaadanaysid marka newspaperka oo kugu waco maxay ahayd asigiyo kugu lifaaqay magacii wadankaadii hore ama wadankaad u dhalatay asal qaxootinimadaadii iyo maaragtay waxyaabaha maaragtay qofka bini'aadanka maaragtay sharaftiisa wax u dhigi kara oo mataqaana maxay ahayd title ahaan kaaga dhigo waxaan ognahay in dad badan oo wadankan maaragtay maxay ahayd ku dhashay ay degan yihiin guriyo kale ka qaalisan balse waa in la isweydiiyo su'aasha ah maxaa maaragtay maxay ahayd ay galabsadeen cidan in maaragtay single out lagu sameeyo oo la yiraahdo former asylum seekers oo Soomaali ah oo aan shaqeynin oo intaas ma aha say wax dambi kale waa dawladda gurgasiisa waa marka dawladii in maaragtay la qabsado ilaada maxaa arintan u sameeyeen way laakiin sababkii family-giisii iyo noloshiisii iyo wixiisii iyo privacy-giisii in banaanka la dhigo marka waxaabaha noocaas markay sameeyaan waxaa loo baahan yahay konton 60 email in loo diro organization-ka arintaas qoray sida dasan oo kaleeto oo la yaqaano inay maaragtay yihiin maaragtay maxay ahayd dad maaragtay ku maaragtay caan ah arrimaha social-ka in la isku horkeeno oo maaragtay maxay ahayd meel dadka loo shido aan maaragtay fiicnayn in haddii ay maaragtay arrintaas ka tanasuli waayaan Ofcom oo ah body regulate gareeya maxay ahayd jaraa'idada iyo TV-yada iyo telefoonada iyo waxa communication wadankan ka baxa loo qoro laakiinse Ofcom waxay arrinta u qaadanaysaa qatar inay tahay haddii hesho email badan oo ku kala yimaadeen dad badan laakiin ani kaliya haddaan qoran aan soo noqon Ofcom iyo maaragtay sida looga bixi karo Maxamed markii ay kula soo xiriireen Times online waxaa jiray qodob hore ay u qoreen maxaan ku radaa ku qoreen maqaalkii ay ka baxay February waxay ahayd February 16 2009 ay leeyihiin Soomaalida dhalinyarada Soomaaliyeed oo maaragtay wadankan ku dhashay ku koray wax ka bartay waxa loo diraa Soomaaliya si ay u soo bartaan argagixisanimada iyo maaragtay inay si loo soo baro maxaan ku radaa inay qarxiyaan wadankan oo deganahay ama ay bilaabaan faralka argagixisada arintaas markii su'aal kamid ah way ku weydiiyeen baan jeclahay ku leeyihiin waxa warar ba ka haysaa inay arintaas jirto marka maxaad ugu jawaabtay adiga ahaan horta sidii kii hore ugu jawaabno ah inaan waxyaabaha hadda la buubuurnaay ama la wado inaan wax aan hadda ka ognaysan jirin say u maqlayna u maqlno laakiin waxa fiican horta laba wax in la kala bixiyo mid waxa weeyaan waa waxyaabaha media laga sheegay ama John Fogg uu sheegay ama kuwa kale ay sheegeen leeyihiin
dhalinyaro badan lahaya ama mid yar iilin ka baxayo soo qarxiyo maxaa la xagga tagay iyo waxyaabo kiisas badan oo life oo lahayo laakiin meesha ay jirto in aad iyo aad looga taxadiro inay tahay in collective looga dhigo Somali communities dhan ana waxaan aaminsanahay in community walba uu leeyahay dad fiican dad xun Soomaali kaliya ma ahan xumaan walana wanaagna walana dhalinyarada marka inta baxday oo waxyar ka dhaxgalo waxyar aan ka dhaxgalo waxaad leedahay markii ay su-aasha aan kusoo noqday su-aasha markay weydiiyeen ku yiraahdeen ma argagixisaad maaragtay wadankiina ka soo qaadeen inta noogu keenteen camal ama se ay dhalinyarada sameeyaan adiga ahaan su-aashaas maxaad uga jawaabtay markay ku weydiiyeen su-aasha ah inay maaragtay falalka argagixisada aad wadankaas Soomaaliya aad ku sameeynaysan inaad wadankeed noogu keenaysaan dhalinyaradiina camal ka dhigata jaamacada maxaa lahaa jawaabta horta waxay marabana noo ahayd ma ahan Soomaalida ma safiirn iyaga inta wanaaga hayso inta positive ku jirto oo horumarka u gaarsiyo community-gooda ama horumarka u gaarsiyo xataa Soomaaliya ama noqdaan wasiiraha noqdaan ama noqdaan humanitarian noqdaan ayaa ka badan inta la sheegay la argagixiso waay horta waxa anaga dhigi karno waan naqaana ama ognahay ma jirto inta iyaga maqleen waan maqlan laakiin inay tahay wax cad ah ama wax run ah Ilaahay baa og waxaan marba aan jecelnahay inay natusaan waxyaabaha ay hayaan xaqiiqdooda iyo inay jiraan in kale marka meesha waxa jirto waxay ahayd inaanu la fiirin marna horumarka ay gaareen studentka horumarka community uu gaaray bad marba la fiiriyo labada ama qofka marba xumaanta sameeyo barnaamijkan wax yar barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay daawadayaasha telefishinka Universal inay ka qayb qaataan oo ah barnaamijka magaciisana waxa weeye aragtida bulshada marka waxaan doonaynaa sida ay u arkaan ummadda Soomaaliyeed arrimahan ama falalkan ka socda hadda UK ama wadankan aan ku noolnahay ama meel walba ay joogaan ba falalka kala duwan ee kala socda oo Soomaalida lagu attack gareynayo ama aad moodo inay warbaahinta si qaas ah had iyo jeer bay uga hadlaan Soomaalida xumaantooda bal barnaamijkan waad soo wici kartaan fikradiina maaragtay waad soo gudbin kartaan had iyo jeer bal aan soo noqdo Junayd arintii waxaad noo waday sida looga bixi karo marka waxaa leedahay Soomaalida waa inay email badan u qoraan Ofcom mise ba si kala jirto ay maaragtay Soomaalida codkooda u dhiiban karaan si maaragtay looga cabsado sida dadkan kale aan maaragtay wadanka aan kula noolnahay oo ah Pakistan iyo Bangladesh iyo kale runtii waa badan tahay case kastoo dhacana wuxuu leeyahay si maaragtay gaar ah oo loo maaragtay wajaho hadda مثلا argagixisoo kaleeto iyo case oo maaragtay qof housing oo kaleeto ninka la dejiyay waa kala duwan yihiin qofka individualka wadanka dabcan jooga oo Bashiir Aadan oo kale waa isdifaaci kariyaa sabaxad waxaan horta dadkuna inay fahmaan ninkii lagu soo qoray qofka journalist ah markuu ku yimaado waxbuu baaranayaa haddii marka adiga aad la hadashidba waxaa loo baahan yahay inaad u mention garaysid waxa la off the record that off the record right politicianka waxaas mataqaana badan isticmaal qof uu la hadlaya wuxuu leeyahay off the record waxay yihiin maba la publish garan karo haddii aad dadka interviews طبعا oo kale sida Maxamed oo kale inaad ku tiraahdo commission ku xustiraahdo ma publish maaragtay itus article-ka inaan socodsiin hubina aan ka helo markaad rabtid maaragtay qortidooda maaragtay soo bandhigtid si aad u sahdid asaga hadda dhawa u keenaysa qofku maaragtay ku yimid waxaas qoray haddii aad organization kale asaga ay competition kula jira aad u tiraahdo aniga saas ma dhihinin reputation organization ka xumaanay waa qof ayay maxay ahayd case ka dhaco kale Michael Jackson oo kale oo ay ku sameeyeen ITV camera isagoo duubanayay ayaguna camera duubanayay teedu waa soo edit galayeen si rabaan ka dhigan waxay